magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho waxa shalay khudbadahoodii soo bandhigay qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamayo xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya ee 4 sano ee soo socota. Musharax kasta oo shalay khudbadiisii jeediyay waxa uu diiradda saarayay waxyaabaha u degsan ee uu doonayo 4 sano ee soo aadan in Soomaaliya uu ku hago. Musharax kastana waxa uu inta badan soo bandhigayay waxa uu kaga duwan yahay musharax kale ama uu isleeyahay haddii aad hesho kursiga aad u socoto Soomaaliya 4 sano ee soo socoto waa aad ku hagi kartaa waxaana ka bixin kartaa marxaladaha kala gedisan ee adag ee Soomaaliya imanka ay ku jirto. balse dhammaan khudbadihii shalay la jeediyay ayna kala jeediyeen musharaxiinta tartamayay oo u tartamayay xilka madaxweynaha waxa khudbadiisa ay inta badan shacabka aad iyo aad u soo jiidatay dad fara badan ay ka falceliyeen falcelinta ay ka bixiyeen ay ahayd falcelin aad iyo aad ay ugu qeexayeen in musharaxaas uu ahaa musharax u qalmo xilka madaxtinimo ee Soomaaliya in uu qabto isla markaana dalku uu hago 4 sano ee soo socoto. musharaxaas ayaa ah musharaxa da'da yar ee diinta xambaarsan aqoon iyo cilmi durugsan leh ee magaciisa la yiraahdo mudane Cabdiqaadir Cali Ibrahim Baghdadi. musharaxan ayaa shalay khudbadii uu jeediyay waxay si guud u gilgishay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin baraha bulshada dadka isticmaala meelaha lagu baahiyay khudbadaha ay musharaxiinta jeediyeen ayay si aan caadi ahayn dadka Soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada ay musharaxan ugu sheegeen musharax loo baahan yahay in loo dhiibo hoggaanka Soomaaliya si uu samata bixiyo. dadka ka faalooday ee faalooyinka ka dhiibtay khudbadii uu jeediyay mudane Cabdiqaadir Cali Ibrahim ayay ku qeexeen inuu yahay mas'uul da'yar aqoon xabaarsan karti leh sidoo kalena qalbi hadlay. dadka oo micneeyay qalbi hadalka uu shalay qalbi hadlay mudane Cabdiqaadir Cali Ibrahim Baghdadi ayay ku sheegeen in musharaxiinta kale dhammaantood ee shalay khudbadaha jeediyay ay isticmaalayeen waraaqad wax lagu soo qoray balse mudane Cabdiqaadir Cali Ibrahim Baghdadi ayaan shalay marnaba warqad fiirinin dhammaan waxyaabaha ay uu ka hadlayeen waxa ay ka soo burqanayeen niyadiisa taasi oo ay ku sheegeen musharax qalbi hadlay dareen hadlay oo waxa uu ka hadlay oo dhan aanay ahayn wax hilmaani uu ku jiro ama hal meel laga eegayo ama waraaqad laga akhrinayo. musharaxan ayaa shalay diiradda saaray isla markaana sharaxay kala dhigdhigay waxa uu doonayo in 4 sano ee soo socota Soomaaliya uu ku hago haddii uu xilka uu hanqaltaagayo uu helo. waxa uu diiradda saaray amniga waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay amni waxa ugu horeysana ay tahay in laga shaqeeyo amniga haddii uu kursigaas helana uu ka shaqeyn doono amniga. waxa uu sheegay in Soomaaliya asaga oo ku dabaqayo dhanka amniga waxa uu sheegay in Soomaaliya sanadadii la soo dhaafay lagu dilay culimo aawdiin dad mansab iyo maqaam sare ku lahaa dalka Soomaaliya dadkaas oo badankooda ku sheegay inay qayb ka ahayn culimo aawdiin fara badan oo magacyadooda uu xusay dadkaas oo uu sheegay in si bila macna ah loo dilay cid wax ka qabatana aanay jirin. waxa uu mas'uulka sheegay inuu midaynayo bulshada Soomaaliyeed aanay jiri doonin in mar walba si bila macna ah loo laayo dadka indhaha iyo aragga u ah bulshada Soomaaliyeed waxtarkan u leh ee culimada ay qaybta ka yihiin. mas'uulkan oo ahaa wasiiru dawliye hore ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in marxaladda Soomaaliya oo wax badan ka aaminsan yahay isla markaana uu bartay qaabka loo wajaha amniga iyo sidoo kale sida argagixisada dalka looga saari karo. waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ragaadisay argagixisada oo aqoonta qaldan oo diinta islaamkana aan ka turjumaynin xambaarsan ay Soomaaliya duulaan ku yihiin balse asaga wuxuu sheegay inuu garanayo qaabka loola dagaalo iyo sida Soomaaliya looga saari karo. haddii dadka Soomaaliya laga saarin waxa uu sheegay inay Soomaaliya noqonaysa dal nabdoon xasiloon cid kastana ay ku noolaan karto. sidoo kale mas'uulka waxa uu diiradda saaray in qof walba cilmigiisa kartidiisa iyo aqoontiisa isaga oo fiirinayo uu ku shaqaalaysin doona in la shaqaalaysiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee cilmiga leh iyo qof walba oo jaga qaban karo ayaa waxa uu arkaa mas'uulka in Soomaaliya ay kaga bixi karto shaqo la'aanta baahsan iyo musuqmaasuqa hareeyay in xilalka Soomaaliya mararka qaarkood si heeb ahaan ah qofka markaas xil looga magacaabo halka qof kale oo cilmi leh ka cilmi badan ka aragti dheer ka siyaasad wanaagsan uu dalka ku sugan yahay balse mas'uulkan wuxuu sheegay in qof walba cilmigiisa kartidiisa iyo way aragnimadiisa uu xil ugu dhiibayo asaga oo marnaba aan diiradda saareenin wax qabiil ku saleysan. waxa uu sheegay in Soomaaliya sidoo kale dadka inta badan madaxda u noqonaya loo baahan yahay inay yihiin dad markaas diin xambaarsan. asaga waxa uu sheegay inuu yahay qof diinta islaamka meel dheer ka gaaray isla markaana garanayo labada dhinacba sidii wax la isugu wadi lahaa. mas'uulkan waxyaabaha aan sheegnay iyo waxyaabaha kale aad u tiri badan shalay ka hadlay ayay dadka Soomaaliyeed ku qeexeen inuu yahay ninka kale ee Soomaaliya samata bixin kara
isla markaana jeclaan lahaayeen in xildhibaanada Soomaaliya ay ninkan doortaan si dalka halka uu taagan yahay uu ugu samata bixiyo waxa xaqiiq ah oo aan dhayal lahayn in waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ay ka hadleen shalay isla markaana khudbadiisa daawado oo faallada ka bixiyay ay waxyaabaha ku qeexeen mas'uulkan ay tahay wax dhab ah isla markaana xaqiiqada ka turjumayo adigu daawade kama mid ahayd dadkii shalay daawaday khudbada uu mas'uulkan daada yar u jeediyay isla markaana ka helay rabana in loo dhiiba xilka Soomaaliya